Okay. laba sheekaan sheegaynaa. Okay. labada sheeko mid waxa waaye cigaal shidaad, midna waxa waaye midwaal. Okay. cigaal shidaad sheekiisa hadda bilaabayna. markaan dhamayno waxaan fiirinaynaa in la fahmeeyo kale. su'aalahaas ka weydiinaynaa. oga pausa la qaadanaya. kadib haddana waxaan sheegaynaa sheekadii oo wiilwaal. Okay. cigaal shidaad marka bilaabayna. Soomaalida marka sheekada sheegayso waxaa laga bilaabaa sheeko xariis soma. Okay. laba nooc loo yiraahdaa. mid tomaad sheegayo waaye sheeko xariir shilin aad isbashaahay kariso waa ku guubatay xaaxay tiri waa waxa jiray laga bilaabaa soma. mid kalena waxa waaye sheeko xariir shimbir baa duushay shimbir baa duushay ubax bay sheegtay shinni baa raacday malabay shubatay sheeko xariir mudada yiraahdo. Okay. marka qof basi u yiraahdaa. hadda waxaan sheegaynaa marka tii cigaal shidaad sheeko xariir waqti abaar xumi dhacday. hadda caadiyan u akrinaya kadib kelmadaha qaarkood waa adag yihiin. kelmadaha adag aan isku dayayna inaan fasirno inaan idinka taqaaneen in kala fiirinaya kadib hadda waxaan isku dayayna inaan fasirno. Okay. waqti abaar xumi dhacday ayaa cigaal safar dheer ku bilaabay guddoodi habeen mugdi ah isaga oo aan socodka kala joojin ama aan kala hakinin ayuu maray jid habaas badan. xoolihiisii oo haraad u baktiyay iyo qoyskiisii oo abaartu naafaysay ama aad wax u yeelaysay ayuu sahan u tagay inuu u soo helo meel ugu wanaagsan tan ay markaa deganaayeen. in safarkiisa iyo walwalka hayay alla u sahlo ayuu cigaal xusuustay ducadii dadka safarka ah loogu ducayn jiray. markaas wuxuu yiri allahay ha iiga dhigo jidka toobiye dhulka taako qoraxduna halaalimo dadkana aabba iyo hooyo gadaalka fasiraya. allihii daa'in hayo degdeg iigu hagaaji meel deegaan iyo roob leh oo biyuhu durduraan. cigaal waa sii kabtiyey ama socodkiisa sii watay isagoo ku hariyaya maalinta dhaanta ayaa wadadii ku soo gaabatay. si kadis ah ayuu marun u maqlay sanqar ka baraarujisay ama ka toosisay habeenkii deganaa iyo fakarkii uu ku maqnaa. cigaal baa kor u booday wadnihiisii baa naxdin la fufuu yiri hareeraha ayuu fiiriyey. markaas wuxuu arkay gorgor fadhiya geed dheer korkiisa. shimbir yahow baas iga tag oo idaa ayuu cigaal yiri. bilaawihiisii ayuu galka kala soo booday oo gacanta ku walhiyey isagoo sii eegaya gorgorkii oo baalasha kala fidiyey oo cirkii mugdiga ahaa isku sii shareeray. si uu isku dejiyo cigaal intuu shaydaanka iska naaray ayuu ducadiisii sii watay. allihii daayin ahaayow degdeg iigu hagaaji meel deegaan iyo roob leh oo biyuhu durduraan. allahayow iga daafac balaayo nabad aan ku turkaayo dariiqa aan ku gudbaa. cigaal hore ayuu usii tallaabsaday isagoo la leexanaya meel wadadu ka qalloocanto oo xagal ah ayuu dareemay in geeduhu doog soo noqonayaan. waxbuu sii eegay meel ka durugsan buu hoosiiska arkay. aryaa meesha maraaya ayuu yiri. laakiin harkii uu arkay ma dhaqaaqin mana sanqarin. isaga oo yaaban ayuu wuxuu yiri muxuu waxani noqon karaa. si uu naftiisa ugu dejiyay ayuu wuxuu yiri allihii daayin ahaayow degdeg iigu hagaaji meel deegaan iyo roob leh oo biyuhu durduraan. allahayow iga daafac balaayo nabad aan ku turkaayo dariiqa aan ku gudbaa.